Hey, get. Why you say you didn't know? And you stepped on my forces? No, man. You stepped on my forces too? Hey, come on, man. I didn't know. You didn't know? Well, stepped on my shit too. haddaba aabbahan maxaa lagu haystaa waad u jeedaan aabba Soomaaliyeed la rabay inuu ilmihiisa maanta la socdo sharaf lahaado balse jidadka lagu jiidiyay fiidiyoga oo dhammaystiran waa idiin soo deynaya laakiin waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaad filaysaan aabbahan in lagu haysto ma inuu dukaanka wax ka xaday baa lagu haystaa waa isleedahay maxaa lagu haystaa waa isleedahay kan waa mid ka mid ah aabbayaasha maalin kasta meesha aan ku hayno oo aan leenahay war faaraxow gabadhii aad guursatay iyo ilmihii la soco faaraxow maqnaanshahan iyo ninkan aan la arag oo tahay ka soo noqo aan leenahay haddaba anaa wax yar idin sheegayo aabbahan waxaa lagu haystaa waxay tahay wuxuu isku dayay inuu la xiriiro ama la seexdo ama gogol dhaaf la sameeyo ilmo jira 13 sano ilmo 13 sano jir ah ayuu isku dayay inuu la seexdo taleefanka kala sheekaystay taleefanka ka ballansaday qoraallo u diray muuqaallo u diray wax kasta u sheegay kadibna ilmihii ayaa la sheergareeyay familigoodii markay familigoodii la sheergareeyeen waxay ilmihiiba iyo ninkii Soomaaliga ahaa oo Faaraxa ayaa isballansaday waxay ku ballameen magaalada dhexdeeda meel ah oo wax laga cuno inay isugu imaadaan waxna wada cunaan halkaasna ay iskala jaanqaadaan kadibna meeshii xigtay ay isu raacaan ilmihii familigoodii iyo gruubyo dhan oo ummado dhan oo ilmaha protectionkooda ciyaalka body file waxa loo ka soo horjeeda waa isu kaashadeen iyo maca booliskii isu kaashadeen may boolisku ma jiro sorry aan ka reebo fiidiyool kale waxaan arkay dad yow kale ay ku jiraan oo boolisku jiro laakiin boolisku ma jiro kan Faarax waa loo naxariistay فيديو رميستر لان تسدر والله حريستي دور درباحه lagu dhuftay ay dhowr darbaxad halka in laga ogolyahay laakiin inuu way intuu doona fiidiyowga dhowr darbaxa lagu dhuftay Faarax waa laga hadalsiiyay kadibna gaarigiisu iska ka haysta oradalay ilmaha ku sugayay iskuul ka soo keen ilmo islaameed rabtayna ku sitid kuwaagii oo soo ka soo tagtay iyo xaaskaagi marka wiilkan waxa lagu haysaa waxa weeye ilmo yar yar buu wuxuu rabay inuu la seexdo anagu saasan dhigi karnaa wax erayada kale waa adag yihiin soo marka arrinkii waa la fashiliyay maxaa dhacay fiidiyowga asagoo aan isleeyahay inta macquulka aan ka soo qaadanay ayaan idin soo deynayaa aan isla aragno You hear me, little girl? You hear me, little girl? Hey, go talk to me. We know you're in the Toyota Highlander. We know you're in the Toyota Highlander. Get in your vehicle, bitch. Butt crack. Hey, get. Why you say you didn't know? And you stepped on my forces? No, man. You stepped on my forces too? Hey, come on, man. I didn't know. You didn't know? Well, stepped on my shit too. They won't come. Hey, get your shit. You leaking, bitch? Get in your car. Go get in there. Get in that fucking car, bitch. Get in that car. Get in the fucking car. That's your shit. Go. Here, we're gonna leave right here. Go. I'll never meet up with kids. Okay, bro. That's good. Get in there. I ain't got you. Put your bitch ass in there. Huh? Where's that? Just get in the shit. How was that? It was horrible. ولا فارح ماشي قعوة كيرتي ولا فارح قعوة كيرتي محا المها إسلامت كوجي محا المها إسلامت إيمان الأنت عنو بيرو قان جار كوجينيس محيت
haddaa waddankaaga soo qarribtay oo ilmo iyo dad weyn aada kala garanaynin dee dadku ilmayaashooda qiimay la leeyihiin sharciyaal adagna waa ka dejiyeen runtii videogaana dhammaystiran waan kala reebreebay maxaa yeelay waxaan ka cabsaday oo violence maadaama yahay oo dagaal uu ku jiro iyo wiilkii oo la dharbaaxyeynayo la leeyahay tirso 1 2 3 ay ku jirto waan ka reebay laakiin qayb ka mid oo yar waan intusay isagoo la bugaynayo marka tan waxay tahay programkan waa program dadka ilmaha yaryarka ah raba inay la seexdaan lagu facsharaa wiilkan dad badan oo Soomaaliya ku jirta marka dad badan oo Soomaaliya ku arka wiilkan baa laakiin hadda aan soo qaatay oo aan isri bal dadka Soomaaliyeed iyo abayaasha aad ku waanisid laakiin abayaal badan baa jooga haddii aad rabtaanna waan keeni karaa meeshaan abayaasha tirada badan ee halkaas maaragtay ku jira abayaashii Soomaaliyeed saasay noqdeen awalba mar horaan sheegnay abayaashu inaysan wax weyn qoysaska ka ahayn inay iska maqan yihiin inay caleen iyo qashin cunayaan inay meel sheeko u fadhiyaan iyo qabyaalad in waxbaba iyo ta aysan ahayn war haddii ilmahaaga aad bari weyday afkii uu ku hadlayay maxaad kaloo bari kartaa abayaasha Soomaaliyeed waxaa ku tusaysa inaysan waxba ahayn ilmahooda afkii kuma hadlaan maxaa yeelay aabihiiba cunugiisa lama hadlo soo adiga afkii aad ku hadlaysay haddaa cunugaaga bari weyday maxaad kaloo bari kartaa ma ii sheegi kartaa waxa kaloo bari kartid ma jirto waxa koobaad inay bulshada Soomaaliyeed tahay bulsho qasan waxaad ku ogaanaysay wallahi adduunka say wallahi meel dhow ma jirto dadka Carabaha ka imaaday way ku hadlaan af Carabiga kuwa Turkiga ka imaaday af Turkiga way ku hadlaan Eritrea Ethiopia kuwa ka imaado ku dhashay wadamadan way ku hadlaan luqadooda qof kasta meeshu ka imaaday Afrikaanka xitaa ka imaaday Afrika oo halka ku dhashay luqadooda Afrika way ku hadlaan qof kasta oo halka ku dhashay wadanku ka imaaday luqadiisii uu ku hadlaa Hindidu luqadooda way ku hadashaa Pakistaantu way ku hadashaa cidda kaliya ee luqadoodii aan ku hadlin wadanka ka imaadeen waa Soomaali sababtuna waxay tahay waalidka Soomaaliyeed ayaa kala dhiman aabba ma jooga meesha aabba waa kana meeshaan meel ka daran u jooga aabba meeshaan ayarkiis furaada lagu sabixiyo isagoo calool iyo naas waa weyn meeshaan kala jira meel ka daran ma jooga aabihi ilmaha luqada bari lahaa kula sheekaysan lahaa u sheegi lahaa dhehi lahaa annagu waxaan ka imaanay halkaas wadan Soomaaliya la yiraahdaan lana aabihi waxa u sheegi lahaa male soo marka ilmihii inay noqdaan meeshay joogaan inay luqadooda ku hadlaan maxaa diidaysa male maxaa yeelay aabba maba jiro wuxuu sheegay aabba ma joogo ilmihii la socdo aabba ma jiro u sheekeynaya aabba ma jiro cunuga markuu dhashay oo muruqa yahay la hadlaya ma jiro sariir buu saaran yahay maamadiina gaari bay ku wadaa lama hadlayso gaari bay ku wadaa meeshii la hadli lahay telefoon ku hadlay maamada qalad kasta gasho waxaa ka weyn qaladka abuhu galayo maamadii ilmihii way haysaa caanay siinay gaari haddaanba laga qaadan gaari bay kurida waa iska wadaa la sheekaysan mayso cunugii telefoon ay ku hadlee faamilaadkeedii dadkeedii la hadlaya saaxiibayaasheeda la hadlaya waa iska mashquulsanta maxaa yeelay inay mashquulsho maskaxdeeda aysan joogin waxaa sabab aabihii bay ka walwalay war xageed jirtaa xagee buu aada stress maama stressayo ninkeedii iska maqan yahay waa soo wax garatay marka qof ninkeedii maqan yahay stressayo oo wareersan oo masayrsan oo laga yaabo ninkeedii inuu waaba kanaaba ilmo yaryar suuqa ka dhex raadinaya ragga ugu aqliga hore markay sheekaysana wuxuu leeyahay war gabadhu hadday 3 ku dhasho dee markuu ninkaba rag markay kulmaan su-aasha ugu koowaad waxaa goormaad labaysanaysaa anaa idin sheegaya gabdhow markay kulmaan aabayaashu su-aalahooda ugu horeeya warsaaxa goormaad labaysanaysaa waa ku arkaayo waa degan tahay markaasu wuxuu leeyahay waa labaysan doonaa haddii qof 3 la joogo nin 3 wuxuu leeyahay maya markii ay adiga 2 iyo 3 ku dhasho oo aad mashquul gelisid way kaa mashquulsho markaas waxbad kale waad raadin kartaa ilaa gabadhii 3 cunug baa geesaha ka fadhida waqti ma helayso ay kaa fikirto macnaha gabadha mashquul marka lagu hogelisid tu kale raadi waa sheekadan ragga wey dhuxulow waadii gabadh hore qabay horta haddii nasiib kuba ku raaciyo meesha ka wada dhacayse mid labaad ma qaadi kartaa waxaan ku yidhi leen saddex hantidana anaaba hala ku dheerayd wax iga dhalisay adiga
وان قاعد كلامات هذا وارحلوا قادي واسون المي وشحذا إنه تشحو شحذ معناها gabadha mashquul marka lagu hogelisid tu kala raadi waa sheekadan ragga wey marka maamo saddex lugaha loo geliyo oo tu kala laga doontay hatta dhibaata haysata marka dhalanaysa xitaa si farxad leh maraysa waxa la alqaadkan goormu ka tagi doonaa waa dhibaato waa mushkilad waa ummad is wada qiyaamaysa waa ummad aan lahayn go'aan waa ummad aan lahayn commitment wax la isku og yahay shay la isku og yahay waxa laga yaabaa maalinka la isku kansanayay qodobo in la isku sheegay nolosha saaraan u rabaa laakiin meeshii looga tagay eedda ugu weyn waxa iska la aabayaasha iskale eedda ugu weyn aabayaasha iskale waa kuwana ceebtoodii waa kuwana ayuu ilma saqiira 12 sano jir ah meel ku balansaday waa kuwana ceebtoodii haye macayb ka weyn baa jirta ninkaas arkayso 40 sano ku sii dhow ilma iyo xaas ka soo tagay 12 sano jir ilma inuu meel ku balansado haye waa kana adduunka dhan way ka buuxaan fi hadaad raadisid muuqaalo millions aabayaal arkaysa oo la haysto oo ficilo xun lagu haysto ficilo shar lagu haysto aabayaashu waxay noqdeen kuwa ficilo shar ah la taagan bulshadu waxay ka nooshahay oo hooyadii un baan arkaynaa maalin kasta ooyeysa maalin kasta maxkamad taagan ilmihii baa layga qaatay ilmahaygii baa si xun loola dhaqmay ilmahaygiina dhar nadiifa ma qabaan ilmahayga saan hooyaleen arkaynaa ku haysa ilmahaygi aan la kulansanahay kan aw aabihii dhalay aaba miyaad aragteen maya waa kana ilma saqiiru balansanaya yaa war sheekada hadda mayn dhacday haddaad halkaan nala soo gaartay halkaan annagu waxaan ku ilaalinaa qoyska waxaan taageernaa hooyooyinka iyo ciyaalka aabayaasha dhumayna waan soo qabanaa waana u caaway celinaa waana isla canaananaa maa dhihi jira haddii aad halkaan nala soo gaartay janalkan waa masar caruureed waxaan ka hadalnaa toosinta dhallaanka toosinta qoyska baraarujinta aabbaha iyo wadajirka hooyada iyo aabbaha iyo in aan helno qoysas wanaagsan mustaqbalka oo isku mid ah wada socda wax isla qabta haddii aadna taageeraysay fadlan subscribe saar youtube channelkeena intaa videoga waa video lamida kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo